Kooxda Liverpool ayaa finaalka Carabao Cup-ka ama Carling Cup-ka kula ballantay kooxda Chelsea kadib guul weyn ay ka gaadhay kooxda Arsenal. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iska xaadirisay finaalka Carabao Cup-ka waxayna la ciyaari doontaa kooxda Chelsea kadib markay guul raaxo leh ka gaadhay kooxda Arsenal oo ku soo garaacday Emirates. Kooxda Liverpool ayaa safarka London iyadoo barbaro gool la'aan ah kulankii hore garoonkeeda kula soo dhamaysatay 10 ciyaartoy oo Arsenal waxayna si xaraga leh uga soo adkaatay Emirates oo ay ku muujisay ciyaar ka sareysa midii Anfield. 2 gool oo labadii qaybood ee ciyaarta uu kala dhaliyay weeraryahanka reer Portugal Diogo Jota ayaa Liverpool siiyay guul u qalantay halka Arsenal ay sii wadatay rikoodhkeeda akhlaaq darrada ah ee kaadhadhka cas ee tooska ah lagana saaray Thomas oo bedel ku soo galay qaybtii dambe ciyaarta. Gooldhaliyaha Arsenal ayaa birta garaacay daqiiqadii 6aad bilowgii ciyaarta taasoo goolhayaha Liverpool uu si dirqi ah kaga saaray goolka isla markaana lagu khasbay inuu koorno u saaro. Daqiiqadii 13aad Liverpool ayaa u dabaaldegtay gool uu dhaliyay Fabinho isagoona madax awood badan ku qabtay kubad uu dhinaca bidix ka soo dhigay Robertson. Hase ahaatee waxaa la diiday maadaama uu offside ku jiray. Matip Jota ayaa xidiga reer Portugal ayaa Diogo Jota ayaana hoggaanka u dhiibay Liverpool daqiiqadii 19aad kadib markii kubad awood badan khasab ku dabamariyay goolkiibaha Arsenal. Jota ayaa daafaca reer England Alexander ka helay baas wuxuuna dabamariyay goolkiibaha Arsenal shabaq waardiyaha ka ahaa. Liverpool ayaa u qalantay inay hesho gool labaad ka hor inta aysan bixin waqtiga nasashada halka Arsenal ay birta la dagaalamasay kubad kalena ay dul mariyeen goolka. Kooxda Arsenal ayaa ahayd mid ay waqtiga nasashada la baxdo ugu yaraan barbaro balse nasiibkeeda liitay ayaan u saamixin. Markii la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta Liverpool ayaa la soo gashay dardar waxayna ciyaarta noqotay mid hal dhinac ka socda. Waxaana laacibka da'da yar Gordon uu ka khasaariyay Liverpool fursad dahabi ahayd daqiiqadii 51aad ka hor inta uuna Ibrahima birta ka jarin. Kubad madax ahayd oo uu xerada ganaaxa keenay Alexander Arnold. Kubadda oo ka soo noqotay birta ayaa waxa ku celiyay Henderson. Hase ahaatee waxaa badbaadiyay goolkiibaha Arsenal. Rowe iyo Gabriel ayaana 2 fursadood ay heleen dhaafin kari waayay daafacyada Liverpool halka Liverpool Robertson uu kubad awood badan dul mariyay goolka Arsenal ka hor intaanu Jota goolka dul marin kubadda halis ahayd. Haddaba Jota ayaa dhaliyay goolka Liverpoolna ku hubsaday in guushooda inay iska xaadiriso finaalka Carling Cup-ka ama Carabao Cup-ka. Weeraryahanka reer Portugal ayaa dhaliyay goolka labaad oo uu dul mariyay goolkiibaha Arsenal kaasoo laga soo hubiyay faarta shaki lagaga saaray. Dhamaadkii ciyaarta ayaa Arsenal 10 ciyaartoy noqotay waxaana kaarka cas oo toos ah lagaga saaray Thomas oo khalad xun ku galay Fabinho.